Video waxaan kaga hadlaynaa introvert waa maxay? Qeybka dhigashada introvert inay dhibaato tahay. Faa'iidadii bini'aadamku isku lahaayeen berigihii hore iyo imika iyo xilliga soo socdaba. See loo xalliyaa qeybka dhigashada introvert? Kaa hortaagnaato inaad bini'aadamka kala hadasho. Taasna la xidhiidho hadaf kasta oo bini'aadam uu rabi lahaa. Sababtoo ah hadafkaaga mar walba bini'aadam uga jira. Labay dadka u qaybsamaan waa introvert iyo extrovert. Extrovert waa dadka jecel inay dadka kale dhex galaan oo ay waqti la qaataan. Introvert waa dadka jecel kelida ee ka yara diiqoona dadka kale aynay garanayn weliba. Videogana dadkaas ayaan ka hadlaynaa introvertska ah. Horta laba sababood bay waxaan tahay inaad isku sheegtid qof introvert ah, qof xidhxidhan oo aan jeclaysan dadka kale inuu la hadlo. Kow, horta bini'aadam waad u baahantay. Haddii ayna dadkii hore dee habnololeedkoodii hore dee group baa loo noolaa qoomiyad. Inba intii wada dhalatay meel bay ku wada noolaayeen. Maanaha aha in saa farqi looga kala dhexaysay laakiin muhiimadda iyo qasdiga keliya waxa weeyaan dadku group bay u noolaayeen. Sababtay ugu noolaayeenna waxay ahayd imika haddaad soo qaadid qof ood kayn aad sidaa u dhex dhigtid meesha waxaad kusoo beerisay wax la ugaarsado cunto hilib socda ayaad kusoo beerisay sida caadiga xayawaanada kale uma barbar dhigmayno xoog ahaan imika libaaxa oo kale waa kii la odhan jiray 40 nin xoogood buu leeyahay inay run tahay inay been tahay ilaahay bay og laakiin wuxuu bay sheegaysaa in taasi uu aad u xoog weyn yahay dee like muruqa ku yaala chimpanzee maaragtay fucking hell man iyo gorillada iyo fuck no ilaahay ku naxariisto haddii si uun keenta ay kaaga soo horbaxaan you cooked wad dhimatay xagaasaad ku iloobaysaa noloshaadii oo dhan mustaqbalkii oo dhan waxaad ka fikiraysaa keliya ta sidaan u noolaada mo xalka keliya ta ku yaalaad eegaysaa inta option ku yaala maal carata dad caratid kaa dheeraynayaa qorimaad haysataa midi maad haysataa maxaad bay ku dagaalami karaysaa waxyaabahaas ka fikiraysaa laakiin haddaad isla keentaa dhowr qof aad soo dhigtid meesha waxaad ku soo kordhisay ugaarsade markii hore ugaadh baa soo kordhisay wax la ugaarsanayo imika waxaad soo kordhisay ugaarsade sababta maad garanaysaa waa badnida ayaa xoogga keenaysa bini'aadamku wada jir bay ku soo wada noolaayeen keliya tana habkay u noolaayeenna wada jir buu ahaa bini'aadan ma arkaysid berigii hore keligii meel nool oo isku sheegaya introvert oo leh dadka kale kuma fiicni sababta ah haddii meesha lagaa saaro waad dhimatay weeyaan groupka haddii lagaa ka dhex saaro oo tribeka lagaa dhex saaro waad dhimatay ama waxaan u danaynay ilaa maanta qof dadka kale ra'yigooda sababtaa wuxuu nagu jirta tii hore scientist kunbaa sheega ma garanaysa laakiin dee maskaxdii waa tii uun maskaxdaadu ismay bedelin saas kumay sii bedelin sababtaad iminka uga baqaysid bini'aadanka kale ra'yigooda iyo iyagoon dee wax allaale wax saameynoo hadda kugu leedahay aanay jirin ra'yiga hebel sababta laga baqaysa waxay ahayd awooyaasha haddii maanta laga saaro tribeka haddii qabiilka laga dhex saaro loo wada noolaa haddii groupka laga dhex saari lahaa dee uu dhimanaya muu haystaa qof u keena cunto oo u soo hamgareeya oo u ugaadhsadaa cuntadii kariya waxyaabihii uu ku noolaa oo dhan u fuliya waa mayde markaa u dhimanaya obvious traumadii haysatay awowgiinii afraad ma ku wada haysanayso 100% laakiin percentage yar oo ka qaadanaysa sidii sheegaan horta scientist weeyaan anigu ma aha like waxaan iska abuuranayo iska leeyahay obviously marka hadduu qof xilligan noolaa uu sheegan lahaa introvert xaflad wali waxaa geli lahaa xayawaan walba ugaarsada oo agtiisa jooga libaaxii waraabihii dacwooyinkii yeydii wax kastoo ugaarsada ah shabeelkii laakiin dee xilligaa ugaadh iyo xayawaano iyo waxyaabahaas ee khatar ah qabow iyo gurigiiya dhisi iyo waxyaabahaas dhibaatooyinkaasaa jiray iminka hooy weyn haysanaa weyn kaga baxsan karanaa xayawaanadii oo dhan waxyaabo saasoo wax kasta adduunka imika u fududeeyey waxaynu bini'aadamka ugu baahanay baa ah su-aaldeed haddii aanay jiri lahayn hooyadaayo dee kusoo korin lahayn dee umaad daawateynba videogan haddaad imika u baahatid lacag aad wuxuun aad ku baxaysanaysid aad adigu doonaysay aad u baahan tahay adigu yaa ku siinaya lacagta dee bini'aadam siday doontaa kusoo noqoto amba waalidkaaga ku siiyo amba wax iibi oo service amba product iibi waxaad doontid samee bini'aadan unbay lacagtu kaa soo gelaysa marka waad u baahantay bini'aadan waayna markaad dhalatayna waad u baahnayd oo hooyadaa waad u baahnayd markaad dhimanaysa sidaad gaboodinna waad u baahanaysaa gabowga bini'aadan walba oo aan ka hor dhiman wuu helaysaa
oo waad gaboobaysaa boqolkiiba boqol qofku keergareeya waad u baahanaysaa weliba waxaan ka sheegay 3 shay oon isleeyahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa bay ka mid yihiin load shay oo halkaaga maalin 24 shay oo ugu yaraana ood u baahanaysa bini'aadan kale ayaad leedahay de marka haddaad still leedahay de introvert waan yahay of course amba waan jecelay kelida waqtigan kelida qaadanayo fikirayo aan keligii fadhiyo oon isbaranayo naftayda of course waan jecelay xilliyadan ugu jecelana waxaa ka mid ah taas laakiin wuxuunba khalada beliefka amba aaminaada in introvert aad tahay qof dee markuu is idhaahdo wax qabo amba dee dibadda u bax amba dadka la hadal qiil iskugu samaynaya sababta ah waxaa tahay introvert qiilun inaad ka dhigitun baa dembiya sababta labaad in karaho kelmadda amba odhaahda introvert baan yahay qof markuu dee isku sheego introvert sababta labaad in karaho waxa weeyaan anaa saa ahaan jiray 24 hour intaan ciyaaro bogjiyo oo qolkaygu gurigaygu fadhiyo oon karahee xitaa karaahsado inaan soo qaato cuntadii xaafaddu ii samaysay ma kaftamaya inaan kaco oon bladekeygii soo qaato aan karahi heeraan ka gaadhay dukaankii intaa tago buskud aan soo tuulan jiray qolkayga nafaqadeydii dambe ay ahayd buskud yaroo dadakaysa joogtid baa leer fahamsay ma garanay inay meelaha kalena lagu iibiyo ma garanaysa laakiin buskud yaroo aan ahayn oreo baa jiro la yidhahdo newgaas oo lowda foosde jawaabalinta maxay noqotay nafaqo hagaagsan aan cunayn vitamin D la'aan hadalkii oo igu adag oonoo bini'aadankii caadiga la hadlayay oon si fiican aan ula hadli karin oon iska dhaadhicinayn nafteeda inaan introvert yahay qiil aan isku samaynayo introvertnimada relationshipkii xaafadoonan wanaajin kuwaagii yarayoo guriga jooga oon xitaa kelmad aan isdhaafsanna aani jirin aan aragba intaasoo bilood laga yaabo oo soo qolka ugu jiray marka kaliya soo baxana iskuulku beedo aan soo noqdo markiiba aan ku soo carro aan bogjiyo ciyaaro aan ku jiruno aan ku yaraban gaadhay seasonka shut the fuck up man dambigu ma bogji dambigu aniga oo rankab gareyn waayay noloshii caadiga ah ee rankab gareynayay bogji laakiin hadduu qofkaas bogji ka hadli lahaa si fiican u hadli lahaa hadduu qofkaas ku mawduuc nahayn si fiican wada hadlina qofka kalena ma wada hadli karin sababta keliya aad u nacab tahay inaad dadka la hadashid sababta kuma fiicna سيد ugu fiicnaansa ku celceli habeenta ay video dhanba kelmadda asaba soo koobaysa skill issue weyn waa daliil ka timaaday halkaaga amba halka waalidka laakiin ma fiicna inaad waalidka saartay sababta wax alaale waxaad ka qaban karaysaa ma jirto kaliya tan wax aad ka qaban karaysaa waa imika soo maaha waalidka haddii kugu sii dayn lahaayeen dad kale ay kugu sii dayn lahayn markaad yareyd of course taasna xumaanteedana way leedoo dee qofka waxyaabo kaluu sii faragelaya ma garanaysaa laakiin horta haddii ay kugu sii dayn lahaayeen of course dee hadalkaaga wuu wanaagsanaan lahayd bini'aadanka kale sidaad ula hadlaysid way wanaagsanaan lahayd ma garanaysaa laakiin kugumay sii dayn waxaana allaalay waxaad ka qaban karaysaa ma jirto wax ma tarayso inaad ku tiraahdo haddaad igu sii dayn lahayd wallahi ku wanaagsan no aday ku saarantahay imika bro haddii imikaad baxdid bini'aadankii caadi lasoo interact garaysid ood la hadashid oo dee aad develop garaysid skillkii aad kordhisid skillkii xirfadii aanad helin markaad yareyd xalka ugu wanaagsan aniga ra'yigayga waa kaas introvertnimadu khalad maaha oo waad ahaan karaysaa introvert laakiin waxaa waajiba inaad bini'aadankii kale aad waqti la qaadan karaysid aad la hadli karaysid sababta ah waad u baahan tahay of course bini'aadan ahaan group bay u noolay nolosheen oo dhan weligaa ayaana cidna kaa dhaadhicin uma baahnin bini'aadan oo ragga uma baahni dumarka idhaahdo ragga idhaahdo gabadha uma baahni bro shut up uma baahantay bro fucking hooyada baa imika ilaa maanta ku daba maxaad gaadaysaa bro xaarba lagaa soo meedhayay shut up aabba ku soo keergarinayay noloshiisa oo dhan oo aad ku noolayd magaciisa iyo sharaftiisa sidoo tiraa ragga uma baahni bro shut up maaha inaad saa loo kala fikiro bini'aadan baa uma baahnin dumarkuna rag uma baahnin raguna dumar uma baahnin no adduunka wax naloo keenana gacmaha la isqabsado dhibaatadana toos looga hortago sababta keliya ee cadowga imika taagan laga soo wada hor jeesto maadka ee go'aanba ka